dad badan ayaa weli isweydiinaya qofkii ka dambeeyey dilka Allah u naxariistay Almaas Elman Axmed oo shalay u geeriyootay xabad madaxa uga dhacday iyadoo ku sugan gudaha xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. Almaas Elman waxay ka soo jeedaa qoys caan ka ah dunida oo lagu yaqaano gargaarka iyo wacyigelinta. 23 sano kadib geerida aabaheed ayaa iyadana lagu dilay magaalada Muqdisho si xaq darro ah. sidoo kale waxaa la dilay 24 saac kadib markii walaasheed Ilwaad ay qaramada midoobe ka sheegtay in Soomaaliya ku jirto xaalad soo kabasho ah isla markaana soo hagaagayo amniga dalka. Almaas Elman waxay ka mid tahay qoys ka kooban 3 gabdhood iyo hooyadood oo ifka uga tagay Allah u naxariistay Elman Axmed oo la dilay bishii Maaj sanadkii 1996. Aroortii oo ka tagay oo ay ka mid ahayd Almaas waxay noqdeen kuwa Soomaalida ka tilmaaman waxayna kala yihiin Ilwaad Elman oo nabadda u ololeysa una sharaxan shahaadada caalamiga ee Nobel Peace Prize, Iman Elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka, iyo Allah u naxariistay Almaas Elman oo noqotay xogiyihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, haddana qaybta warbaahinta u qaabilsaneyd xafiiska midowga Yurub ee Muqdisho. Axmed Maxamed Cali Kiimiko oo ah gudoomiyaha xarunta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha oo wax badan ka yaqaana qoyska Elman ayaa iga warramay taariikhda qoyskan iyo garashadiisa Allah u naxariistay Almaas Elman. isagana gacanka gardar hoosaas oo kale ugu baxay gabadhii saddexdoodiba waxay noqdeen saddex ka tilmaaman bulshada mid ciidamada gashay midna oo soo noqotay diblomaasiyada howlihii sii waday mid kale noqotay yani qof international figure UN-ka shaqoos culus ka qabatay Soomaaliya magac soo huisay waxaa kaloo ka sii daraad fartuun hooyada lafteeda markay timid naboor weyna bariga jiray iyadana gudoomiye ka noqotay waa family wada activista markasana ku helay xuquuqda aadanaha iyo horumarinta dalka iyo nabadeynta shaqooyinkoodaas marka qofka marka wanaag uu sameeyo haddii xumaan loogu bedelo waa dhibaato. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xogta ku saabsan dilka Almaas. Dadka yaqaana arrimaha ciidamada iyo dagaalada ee arkay sawirka xabadda laga soo saaray Almaas ayaa sheegay in xabadda ku dhacday ay tahay mid culus loona maleynayo inay ka timid meel fog maadaama xabadda aysan ka dhex bixin gabadha. Korneyl Cali Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa iga warramay waaya aragnimadiisa falkii ka dhacay xarunta Xalane iyo baaritaano hordhaca oo soo baxaya oo ay soo saareen safaarado ay ka mid tahay midda Mareykanka ee Muqdisho. xabaddan horta waa 50 caliber waa qori weyn waaye qorigaas weyn waxa waaye haddii analyze lagu sameeyay oo maaragtay xataa waayare ay isdhaafsadeen muxuu ahaa safaaradaha oo diblomaasiyiinta isdhaafsadeen Xalane oo ay ka mid tahay safaaradda Mareykanka arkay waayare isdhaafsadeen waxa uu leeyahay laba gaari ayuu raadarka uu na tusaayo oo dhaqdhaqaaq ka sameynaysa dhinaca ka baxsan airportka weliba xigto dhinaca maarag oo mid ka mid ah oo maaragtay xabad ugu soo riday kii kaleeto dhaqdhaqaaqaas waan aragnay baabuurka soo riday waa noocyadiisa way sheegayeen laakiin waxa waaye xabaddaas waxay ahayd xabad meel fog ka timid qore culus oo ahaa oo maaragtay oo tiiro dheer oo soo qaboobay. Cabdullaahi Nuur Xaashe oo sidoo kale ah sarkaal hore oo ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa qaba aragti ka bedela midda Korneyl Cali Macow. Xaashe ayaa aaminsan in baaritaan fog lagu sameeyo arrintan oo aan lagu soo koobin oo kaliya in xabaddu tahay mid ka timid meel fog isagoo sheegay in mararka qaar xabad meel dhow ka dhacday ee qofka dhex fariisan karto oo aysan ka bixin. in dibadda xabad ka timid ay ku dhacday marxumadaas in uu jiri karo gudaha lafteeda in xabaddu ay ka timid oo aan mataqaanaa inta la yiraahdo xabad ayaa dibadda ka dhacday inaan arrinta sidaas loo yareynin ayaa waxoogaa iga soo baxay markaan arkay waxyaalaha oo iskroos gareynaya marka haddii ay sababtu tahay mid kastaba waxaa jiro qaab xabaddu markay qofka ku dhacdo inay kor uga soo dhacday inay toos ugu dhacday inay dhinac uga timid qofka wuu yaqaanaa dadka arrintaas shaqada kule way yaqaanaan baabuur hadday ku dhex dhacdana isweydiin mabalaba shardi ma ahan xabaddu inay gaariga qof inay qofka xabaddu ku dhex qabowdo ama xabaddu ay dhex gasho qofka shardi ma aha inay xabaddu meel fog ka timid ama inay meel dhow ka timid labadaba iyadoo xabaddu ka timid qofka xabaddu kana bixi kartaa kuna dhex mataqaana dami kartaa. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay baari doonto dilka Almaas ayna shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonto natiijada baaritaanka. waxaan jeclahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed dhacdadii oo ay ku geeriyootay marxuum Almaas Elman oo qiimo weyn ugu fadhiday dalka Soomaaliya. waxaan tacsi u dirayaa magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyootay
iyadana ilaahay jannada ha geeyo. waxaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta CID ay furtay galdacwadeed ay ka qayb gali doonaan saraakiil tiro badan oo khibrad u leh baarista dambiyada noocan oo kale ah. wixii ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Almas Elman waxay ka mid noqotay dad badan oo haldoor u ah bulshada Soomaaliyeed oo si xaq darro loogu dilo Soomaaliya ilaa haddana aanan helin cadaalad, laakiin ma noqon doontaa qofkii ugu dambeeyay xaq darro loo dilo? waa su'aasha dad badan maskaxdooda ka guuxaysa.